barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca soomaalida dhexdeeda. timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhakhaatiirtu ay sheegeen waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxaa kaloo keeni kara isbeddel ku dhaca hormoniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudboonaata ama dawo uu qaato oo saamaysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhakhaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayey xalka loo helay bidaarta, oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhakhaatiirta ku shaqaysta qaliinada timabeerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ka howlgala cisbitalka Medical Park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhakhaatiir samaysa qaliinada timabeerista, ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timabeerista casriga ah. hawsha timabeerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee markaa waddankan Turkiga uu aada ugu horumarsan yahay. VO system habka la yidhaha ama VOOM system waa habka organic ama timaha oo loogu tegayo jiridooda. timaha bani aadamku markaad eegto waa 2 ama waa 3 leh. haddii qofku 3dii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa 100%. haddii qofka 2 jirid ama 2 leh uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama technology iyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo. Dr. Maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timabeerista iyo sida loo sameeyo. hawsha timabeeristu waxay qaadataa 2 days ama 2 cisho. maalinta u horeysa waxa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama hawlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka downarka qaybtan ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe qofka sii jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay ka soo baxaan. marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaadhsiin karaa ilaa 5,000. kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe, wixii intii laga helo beertaas dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo maydhaa qofka oo waxa laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray ayaa shampoos iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu maydhaa. barnaamij kaloo waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. plasma baa la yidhaha. packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xidhiidho all waxaa la siiyaa package dhamaystiran oo wax walba ay ugu jiraan. waxaanay qaataa 2 days. after that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. muddo 2 bilood gudahood ayay madow kusoo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. wixii intaa ka dambeeyana timihii si organic ama normal ayay usoo baxaan. waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. wixii intaa ka dambeeya timihii si normal ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. waxaa kaloo muhiima qofku hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay bidaartu soo gelayso, inuu si degdega timaha u beero. waxay taasi ka hortegaysaa dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin. laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisa iska sii wato,
waxaad arkaysaa iyadoo bidaarta intay sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa banaanaatay. gadhka waa laga qaadi karaa timaha. dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadhka, oo gadhka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo. Sheekh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay. horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska samaysaa research oo inaad samaysato weeyaan intaad meesha aadin haddii aad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin. qaar waxaa hataa jira aan layidhi ayaan maqlay oo sharci aan lahaynba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey. dakhtariinta maaragtay baa fiican in laga samaysto isbitaalada waaweyn oo timaha sameeya. waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale wixii ay ka yiraahdeen. waxay ka yiraahdeen baa sii maaragtay sii research ku sameeyey. yes, waa gartay. markii operationka la bilaabay maxaa lagu sameeyey? ma tintaa la xiiray? bal haddaad sharaxda meesha. marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga siday u adag yihiin. micnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiisu waa different weeyaan. timo waxaa jira yani maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahayaan maaragtay ma sameyn karno oo kale, waayo because resultigii micnihii wax fiican ma soo baxayaan. marka waxay sameynayaan marka hore kubaareen sawirey kaa qaadayaan, dhiigna way kaa qaadayaan oo maaragtay caafimaadkaaga fiirinayaan. waayo cuduro waxaa jira haddii qofka uu leeyahay inad ayagu timaha u sameynin. diabetes-ga, cudumada maaragtay xanuunada la yidhaahdo hepatitis-ka oo kale iyo marka haddaa cuduradaa leedahay timahaagu micnihii bixitaankooda waa iska result fiican ma yeelanayaan. waa gartay. marka operationkii baad gashay Turkiga, waa lagugu soo sameeyey timihii qayb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qaybtii kale lagu beeray. natiijadu maxay noqoto marka? walaal resultigu hadda aniga maasha Allah qof kasta maaragtay waxay yiraahdaan aad bay timihi kugu soo baxeen. inkastoo hadda maaragtay weli waktigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay ku leeyihiin dakhtariintu marka hore waa 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year and a half. marka weli sanadkii ma dhamaanin. bishaan next year April next year buu maaragtay i dhamaanaya sanadkii. laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen micnihii waa aad baan resultka uga helay. marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaanaa, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga ka dhex cadaanayso. u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan? meel kastay sameynayaan. waxa muhiimada waxa weeyaan waa inaad timahaagu adigu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. haddii timaha gadaasha bay adegiin timo fiican oo adeeg yihiin way kaasoo koriyaan, way kugu beerayaan. waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadallo la isla dhex marayo oo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanasulaa wax kale. horta arrintaa waa maqlay, hore waan u maqlay. kowda timada ilmaadeerna hadda waa iweydiiyeen arrintaa way caadi wey maaragta toos bay ii weydiiyeen. marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan. qofka maaragtay ragnimadiisu timaha laga soo maaragtay loo beeri kuma xirna. waxaasna waa wax maaragta hamaynaya dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. marka waa waxaas xalka ma jiraan baan dhihi lahaa. anigu 2 jeer baa liigu sameeyey, waa markii labaad. marka hore Mareykanka liigu sameeyey, markaan waa markii labaad. wax dhibaato ah oo maaragtay tima abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weeyaan. waxaa ka daran kiniiniyaasha inta ka cunayaan
oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. waxaa jira dhakhaatiirta Mareykanku waxay ku siinayaan maaragtay ku offer garanayaan kiniinyaal iyo koofiyad laserla iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo. magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagtaa halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan. xasan cumar baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi tima beerashada u tagaya. dadka Yurub iyo America ka imaado timaha halkan loogu sameeyo aad iyo aad ay magaaladan ugu soo badan yihiin ayagoo raxan u socdo sidii 4-5 ayuu imaadaan magaaladan oo timaha u wada sameystaan ay u wada noqdaan. hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan waa imaadaan oo timaha hadda loo sameeyaa. waxaa u malaysaa inay dadka Yurub ay kasoo guursanayaan oo timihii ayagana sameysanayaan. marka nin qurba jooga oo madax xiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leedahay? maya lama arkayo. waa ayagoo waxaa arkaysa ayagoo kulli hal mar intay soo wada samaystaan ayagoo 4-5 ah goonkii in laga soo dakraa umalaysa u duuban arkaysaa magaaladan ku arkaysaa. marka qarash ahaan imisaa qofkii uga baxaysa? dadka qaarkood laba operation ay galaan waa sanad kala loo dibdhigaa. waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ay furan tahay waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shuruudihii loogu baahnaa. baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha 2,000 qofaa u baahan, qofaa 5,000 timihiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saaraayo. marka operationadii xataa qaarkooda 2 mar galo qaar 1 mar ay galaan. qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan. ninka ugu hooseeyana waxa waaye 700-800 waa. marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sidii timaha ugu yeelaan meesha intay leegtahay iyo bidaartaada intay leegtahay. waa gartay loo qiimeeyaa. dadkan timaha loo sameeyo 6 bilood doodii ayaa uga soo baxdaa timaha ayaga oo baashaalid maashada u imaaday magaalada kusoo laabtay. waa arkaysaa marka waa badan yihiin. Soomaali badan baa hadda wadankan soo gashay una timaado timaha iyo caafimaadka. waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. marka cisbitaaladan la tegaya ee dadka daweynaya ama timaha u samaynaya waa isbitaallo noocee ah? ma isbitaallo wadanka laga aqoonsanyahay waaweynba mise waa meelo macmal ah oo qof dad gaara samaystay? waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda. horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya wadankan. laakiin dadka sameeya waa dad wadankan oo leesan kule oo dhakhtar weyn ah. ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. wadankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoon leesan lahayn, dhakhtar weyn uusan lahayn, dawladda aysan soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtarha iskama sheegan karo. baafa waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiyiin ha noqdaano ama ganacsato ha noqdaano oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaa soo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen. oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan Turkiga? sax waaye waa jirtaa niyo colaado. waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. waa jirtaa waxaa jiro xildhibaano wasiiro iyo madax kale oo dawladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsato ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya ayagoo bidaar leh. 2 bilood 3 bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican loo habeysano oo isqurxiyay ama waa kaasoo horbaxayn. waa jirta iyadana taa waa jirta waa xaqiiqa waa. marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar hore u lahaa ha ku tashan inuu berri isagoo bidaar leh aad arkaysid. waa jirta hadda waxaa u malaysaa in operationadii hore laga gudbaayo. waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanaayo oo qofkiiba maalmo kadib asoo timihi oo ninkii bidaar lahaa arkaysaa arkeen oo soo timo leh oo jeeb u jarantaa kaa hor imaana. waa jirta iyadana. doctor maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timo beerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay. waa run way jiraan siyaasiyiin aada u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aada iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib way jiraan. marka dhalinyaro dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo timo beerista waanu u samaynaa. iyo siyaasiyiinta markaa aada magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas timo beerista 100% aanu ku guuleysanay. aadna dadku ay ugu hambeliyeen markay arkaan quruxda iyo haybadda markaa ay hawshaas u keento. haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timo beerista? waa kan doctor maxamed oo mar kale ka jawaaba. hawsha timo beeristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro. tusaale ahaan xagga raganimada ama
marka aad u eegto hawlaha xagga taranka oo kale wax dhib ah oo ay u keeni kartaa ma jiro. dadka qaar waxay idhaahdaan waxay keeni kartaa maskax ama madax xanuun badan. hawshaas waxba kama jiraan haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaha ben ama qalinka lagu beerayo oo kale, habkaa marka la isticmaalo waxaa aada u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa. hawsha taranka waan sheegay, hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii uu u ahaan jiray buu ugu soconayaa, wax iska bedelayaa ma jiro. doctor maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeeshaa aysan dhibaato u keenin, hase yeeshee ay sare u qaadayso un mooralkooda. waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally, yani qofkii markii hore is odhan jiray haddaad time yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale, inay psychologically iyo ay u fiican tahay. ragga qaar ayaa noloshooda ku dhammaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan, haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin wakhtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay. xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan, inkastoo dhakhaatiirtu ay ka digayaan saamaynta dawooyinkaasi ay leeyihiin, halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan. waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo. fanaanka dalmaryare ayaa ka mida raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday. qadka taleefonka ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horreyn uu iga warramay waxa ku dhaliyey heestaasi. miyow horta anigu totally waan kasoo horjeedaa, mana umalaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay intaan turki tago qof islaameed timo laga soo gooyay in la ii saharo. macnaha dadka bidaarta waa qurux weeyaan, saas darteed ayaa igu kaliftay anigii nin saaxiibkii Cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaarta le ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xaqa lagu soo dhicinayo raggan. marka miraheeda dad iyadoo muusig la-aana noo tiraahdo. nin bidaar le haddii mawlayen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye gabadhyay habale. bidaarle hadiyo mawlayen kugu beego, bidaarle hadiyo mawlayen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye gabadhyay habalaysan. bidaarle hadiyo mawlayen kugu beego, bidaarle hadiyo mawlayen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye gabadhyay. hadduu ilaahay ku siiyo nin bidaar leh oo ilaahay kugu beego boqol buu ragga deeriye gabadhyay habalaysan. waa gartay baashu waa qurux rag baan aqaanaa xirtay markay heestaa maqleen rag xaafadoodii laga soo ceydiyo xirtay baan aqaanaa. waa gartay marka boqol baan ragga dheerna naga daayay maasaan oo turkiga la aadayo. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara, halkanna idinkala socodsiiya bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta ah, oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. waxaad dhegaysanayseen barnaamijka ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay maxamed colaad xasan. halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a.